Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Maanta waxaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo sharaxaadda filim lagu magacaabo Rubber. Daawasho wacan, kana taxadara. Filimkuna waxa uu ku bilaamayaa ninkan oo ah nin xisaabiye ah isla markaana taagan meel cidlo ah. Waxa uu gacmaha ku sidaa diirada fara badan, waxaana inoo muuqda in ay ag yaalaan kuraas badan. Kadib waxaa wadada soo maraya nin askari ah oo gaari wata oo lagu magacaabo Pete. Waxaana uu si jees ah u jiirjiirayaa kuraasta. Marka uu gaariga istaajiyo waxa gaariga xaggiisa dambe ka soo baxaya nin gaashaale ah oo lagu magacaabo Chad. Isla markaana waxa uu Pete weydiisanayaa biyo, waxaana uu u soo dhaqaaqayaa dhanka kaamirada muuqaalka lagu duubayo. Kadibna waxa uu sharaxayaa in ay jiraan ficilo badan oo u dhaca sabab la'aan marka shariimada laga hadlayo, sida karakteriska jacaylka qaadaya marka ay curinayaan sheekooyinka iyo aflaamta jacaylka ah. Sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in dhammaan aflaamta waaweyn ay ku jiraan arrimo waaweyn isla markaana u dhacaya sabab la'aan. Marka uu tilmaamo arrimo fara badan oo nolosha ka mid ah isla markaana aan u dhacaynin sabab muuqata, waxa uu u sheegayaa daawadayaasha in ay maskaxda ku hayaan iyaga oo filimka daawanaya in ay jiri karaan arrimo badan oo u dhacaya sabab la'aan. Kadib waxa uu dhulka ku shubayaa biyihii uu gacanta ku hayay si sabab la'aan ah. Intaa kadib waxa inoo muuqata in kaamirada dib loo qaaday, isla markaana ay inoo muuqdeen dad daawadayaal. Xisaabiyihii ayaa waxa uu siinayaa qof walba xabad diirad ah si uu filimka ugu daawado, balse daawadayaashu may weydiinin sababta ay ugu baahan yihiin qalabkan si ay ugu daawadaan filimka. Kadib xisaabiyuhu waxa uu iskaga tegayaa meesha. Markii ay muddo sugayeen inuu bilowdo filimku, daqiiqado yar kadib iyagoo caajis dareemaya waxa ay arkeen taayirkan lagu magacaabo Robert isla markaana ka soo baxaya ciidda hoosteeda. Kadib taayirku markii uu ciidda ka soo baxay waxa uu bilaabay inuu iskii u socdo, wuxuuna ku soo baxay caagad meel taala isla markaana waxa uu ka maray guudka isagoo jajabinaya. Shaygii ku xigay ee uu ku soo baxay waxa uu ahaa dibqalooc yar, waxaana uu ku sameeyay isla ficilkii, waxaana uu ka maray guudka. Marka Robert waxa uu ku soo baxay quraarad, waxaana uu isku dayay inuu burburiyo, balse umay suuro gelin. Markan kadib waxa uu isticmaalayaa awoodiisa psychokinetic, waxaana uu burburinayaa quraaradii. Daawadayaashu waxa ay la cajabeen arrinkan, isla markaana waxa ay xiiseynayaan daawashada filimka. Intaa kadib Robert waxa uu ku sii fogaaday goobtan saxaraha ah, isaga oo wax kasta burburinaya sida caagado, bahalo iyo wixii la mid ah. Markii ay habeen noqotay, Robert waxa uu isku dayay inuu seexdo. Waagu markii uu bariyay, xisaabiyuhu waxa uu kicinayaa daawadayaasha, isla markaana waxa uu ku baraarujinayaa in ay daawashada filimka sii wadan karaan. Daawadayaashu waxa ay dareemayaan gaajo daran, balse waxa ay aad u xiiseynayaan filimka daawashadiisa. Hadda daawadayaashu waxa ay u jeedaan Robert oo qalbiga ah ka cabaya. Robert waxa uu arkay bakeyle yar, waxaana uu u qarxiyay si degdeg ah, isla markaana isagoo isticmaalaya awoodiisa. Hadda Robert waxa uu xaqiiqsaday inuu awoodiisa wax kasta ku burburin karayo, waxaana uu u kacay dhanka wadadu ka xigto. Waxaana uu indhaha ku dhuftay gabadh wadata gaari, waxaana uu isku dayay inuu qarxiyo, balse kaliya waxa ay awoodiisu u saamaxday inuu gaariga ka bakhtiyo. Kadib Robert waxa dusha ka maray gaari kale oo wadada marayay. Marka Robert waa uu soo kacay, waxaana uu soo raadiyay gaarigii jiiray, isagoo oo ku soo gaadhay goob shidaal, waxaana uu dilay darawalkii isagoo oo madaxa qarxiyay. Daawadayaashu aad bay uga naxeen arrinkan, balse taa beddelkeeda waxa ay xiiseynayaan daawashada filimka. Robert markii uu dilay ninkan, waxa uu u dhaqaaqay dhanka hotel ku yaalay wadada agteeda, isla markaana waxa uu ku arkay gabadhii uu gaariga ka bakhtiyay ee uu isku dayay inuu dilo. Markan gabadhu waxa ay gashay musqusha iyadoo isku dayaysa inay jidhkeeda nadiifiso, balse Robert waa uu ka joogsaday inuu dilo, waxaana uu eegayaa jidhkeeda. Si la mid ah daawadayaashu waxa ay falanqeynayaan jidhkeeda iyagoo adeegsanaya diiradaha maadaama ay ka fog yihiin. Nin ka mid ah daawadayaasha ayaa waxa uu ka qaadayaa diiradda ilmihiisa yar si aanu u arkin jidhka gabadha. Markii ay soo baxday gabadhu waxa ay qabatay dhanka iyo qolkeeda. Si la mid ah Robert waxa uu tagay qol ka mid ah albeerkada isagoo halkaasi ku sugnaanaya ilaa iyo caawa, isla markaana daawanaya muuqaalada ka socda telefishinka. Waxaa seexday sidoo kale daawadayaashii filimka. Markii uu waagu bariyay, xisaabiyaha ayaa waxa uu diyaarinayaa hilib uu u geynayo daawadayaasha filimka. Markii uu soo baxay waxa uu la kulmay gabadha ka shaqeynaysay hoteelka oo lagu magacaabo Martina, isla markaana waxa uu farayaa inay nadiifiso qolkiisa. Martina waxa ay gashay qolka xisaabiyaha, xisaabiyuhuna waxa uu soo gaadhay daawadayaasha isagoo u qaybinaya hilibkii, isla markaana ay boobayaan.
balse qofka kaliya ee aan hilibka cunin waxa uu ahaa nin da' ah oo ku fadhiyay kursiga loo yaqaano wheelchair-ka. haddaynu dib ugu noqono hoteelka, Martina iyada oo nadiifinaysa qol ka mid ah hoteelka waxa ay aragtay madow ku yaala go' sariir saaran, isla markaana waxa ay aragtay taayir meesha yaala, waxayna malaynaysaa inay ka tageen mid ka mid ah macaamiisha hoteelku. isla markaana waxa ay u tuuraysaa dibadda. hase ahaatee Robert waxa uu ka xanaaqay ficilka ay ku samaysay Martina, waxaana uu isku dayay inuu dilo, balse intaanu dilin ka hor Zack oo ah inanka uu dhalay mulkiilaha hoteelku ayaa waxa uu arkay taayirkan iskii u soconaya, waxaana uu u sheegay aabihii, balse aabihii waxa uu u arkaa inuu xaraabaynayo, waxaana uu u dirsaday pizza. Robert hadda waxa uu daawanayaa telefishinka isaga oo ka takhalusay nolosha Martina. markii xigtay Robert waxa uu u soo dhaqaaqay dhanka swimming pool-ka, waxaana uu arkay gabadh ku dhex jirta biyaha. markii ay ka soo baxday ayaa waxa uu isku tuuray biyihii. daawadayaashuna waxa ay indhaha ku hayaan ficilka uu samaynayo Robert, waxayna ka doodayaan bal inuu quusi doonayo in kale. hadda dhammaan daawadayaashu waxa ay dareemayaan calool xanuun daran, kaliya waxa ka badqaba ninka ku fadhiya wheelchair-ka, waxaana uu tilmaamayaa in laga yaabo in hilibka ay cuneen uu sumaysnaa, maadaama keligii uu ka badqabo xanuunkan. intaa kadib Zack oo ah inanka uu dhalay mulkiilaha hoteelku ayaa waxa uu arkayaa Martina oo madaxa laga jaray, isla markaana waxa uu degdeg u wacayaa booliiska uu hogaaminayo gaashaanle Chad ayaa soo gaadhaya goobta, isla markaana waxa ay bilaabayaan baaritaan degdeg ah. hadda Zack waxa uu u sheegayaa aabihii iyo booliiska inuu taayirkani dilay Martina, balse aabihii waa uu iska indha tiray, waxaana uu ku amray Zack inuu biyaha ka soo saaro taayirka. kadib mulkiilaha ayaa waxa uu taayirka u tuurayaa dhanka iyo daaradda. hadda Chad waxa uu weydiinayaa mulkiilaha su'aalo ku saabsan Martina, balse saacadiisa ayaa ciyaysa, waxayna tilmaamaysaa inay dhammaan daawadayaashii filimku dhinteen. waxaana uu ku odhanayaa mulkiilaha hoteelka dhammaan daawadayaashu way dhinteen. hase ahaatee muu fahmin mulkiilaha hoteelku waxa uu u jeedo, waxaana uu la yaabay jawaabtiisa. hadda waxaa dhanka iyo bannaanka ka muuqanaya dhammaan daawadayaashii inay dhinteen. gaashaanle Chad waxa uu ku noqday tiimkiisii, waxaana uu u sheegay inay iska noqdaan, balse waxa ay u arkaan nin waalan maadaama oo aanay dhammaystirin baaritaankoodii. sidoo kale Chad waxa uu u sheegay inay samaynayeen tijaabo, isla markaana ay jiraan dad ka daawanaya dhanka saxaraha, si lamidana aanay jirin cid ku dhimatay hoteelka. askariga lagu magacaabo Dennis ayaa waxa uu soo bandhigayaa inay arkeen meydka Martina, sidaa awgeedna ay sii wadaan baaritaankooda. hase ahaatee gaashaanle Chad waxa uu ku adkaysanayaa soo jeedintiisa, tiimkuna waxa ay la yaaban yihiin waxa maskaxdiisa ka sii noqday. intii ay tiimku ku guda jireen falaqaynta maskaxdiisa, markan Chad waxa uu dalbanayaa in ay xabad ku soo ridaan. mid ka mid ah tiimka ayaa isaga oo aan hubsan si lama filaana ugu riday xabad. tiimkina waa ay yaabeen, waxayna ka yaabeen markii ay arkeen xabaddii oo aan Chad waxba yeelin. xisaabiyihii ayaa goobta soo gaadhay, waxaana uu u sheegay Chad inay dhinteen dhammaan daawadayaashii, balse uu ka hadhay ninka ku fadhiyay wheelchair-ka. Chad waxa uu u jeesanayaa dhanka tiimkiisa, waxaana uu u sheegayaa inuu iska ciyaarayay, isla markaana ay hawshooda sii wadan karaan. tiimkii waa ay qosleen, waxayna sii wateen shaqadooda. Chad waxa uu qabtay dhanka mulkiilaha hoteelka isagoo oo su'aalo weydiinaya. markan waxaa soo kacay Robert, isla markaana waxa uu madaxa qarxiyay mulkiilihii hoteelka. Chad waxa uu joojiyay hadalkii, waxaana uu tiimkiisa u tilmaamayaa inuu dilaagu yahay taayirkan. kadib Zack oo ah inanka uu mulkiilaha hoteelku dhalay ayaa waxa uu ciidanka u sheegayaa inuu taayirkii baxsaday. dhanka kale xisaabiyihii waxa uu qabtay ninkii ka hadhay daawadayaasha isagoo u soo qaaday cunno sumaysan, balse ninka ku fadhiyay wheelchair-ku waa uu iska diiday inuu cuno, waxaana uu weli sii wataa daawashada filimka. labada askari ee lagu kala magacaabo Pete iyo Xavier ayaa waxa ay kaxaysteen gaari iyagoo isku dayaya inay soo qabtaan taayirka. hase ahaatee waxa ay u jirsadeen xogay iyaga oo ka cabsanaya. taayirkan lagu magacaabo Robert waxa uu si lama filaana u arkay labadan askari, isla markaana waxa uu madaxa qarxiyay Pete oo waday gaariga. dhanka kale xisaabiyuhu waxa uu la fadhiyaa ninkii wheelchair-ka ku fadhiyay isaga oo uga sheekaynayo sheeko hore iyo inuu dilay walaalkii, balse waxa uu si lama filaana u cunay cunnadii sumaysnayd isaga oo ilowsan. xisaabiyihii waxaa la soo darsay xanuun daran, isla markaana waa uu dhintay. hase ahaatee ninkii wheelchair-ka ku fadhiyay waxa uu iska daawanayaa filimkii.
3 casho kadib taayirkii waxa uu laayay dad fara badan isla markaana waxa meel walba daadsan dad madaxa uu ka guray waxaana uu qiyaastii dilay kala badh dadkii magaalada ku noolaa. Kadib 2 booliis ah ayaa waxa ay heleen isaga oo daawanaya telefishan waxayna ka cabsadeen in uu waxyeeleeyo haddii ay u dhawaadaan. Waxayna waceen gaashaanle Chad iyaga oo ka dalbanaya caawimaad. Kadib boolisku waxa ay diyaariyeen qorshe ay ku dilayaan Robert iyaga oo sameeyay bombolo ay u eegaysiiyeen bani aadamka isla markaana ay ku xidheen miinooyin taas oo ay ka galeeyeen inuu taayirku moodo bani aadam isla markaana uu madaxa qarxiyo oo ay ku qarxaan miinooyinka ku xidhan. Hadda waxa goobta yimid ninkii ku fadhiyay wheelchair-ka waxaana uu booliska kula taliyay in ay toos u toogtaan taayirkan. Robert waxa uu madaxa qarxiyay bombalihii balse waa uu shaqayn waayay qorshahoodii. Markan Chad waxa uu la soo baxay qori isagoo iska dhigaya inuu soo tooganayo taayirka waxaana uu ka dabagalay gurigii. Kadibna waxa uu ku soo agtuuray ninkii wheelchair-ka ku fadhiyay holof taayir ah waxaana uu u sheegay inuu toogtay. Hase ahaatee Robert muu dhiban waxaana uu markan iska soo dhigay baaskiil yar. Ninkii wheelchair-ka ku fadhiyay ayaa waxa uu ka daba qaylinayaa booliiska balse booliskii waxa ay si degdeg ah uga tageen goobta. Isla markaana Robert waxa uu qarxiyay ninkii wheelchair-ka ku fadhiyay. Hadda Robert waxa uu samayn karaa wax kasta oo uu doono waxaana uu soo kaxaysay raxan taayir ah isla markaana waxa ay marayaan wadooyinka. Filimkuna sidaas ayuu ku dhamaanayaa. Fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelka muuqaalkana like saar. Mahadsanid daawade.